calool fadhiga dhakhtarka harfeed wuxuu la wadaagaa daaweynta guriga ee waxtarka leh ee arrimaha caadiga ah ee mindhicirka. waa kuwan qaar ka mid ah dawooyinka guriga ee dhakhtarku oggolaaday ee arrimaha dheefshiidka caadiga ah. yogurt oo qani ku ah probiotics waxay dheelitirtaa caafimaadka mindhicirka, halka kiwi ay caawiso calool istaaga leh fiber iyo actinidin. sinjibiishu waxa ay nafisisaa bararka iyada oo loo marayo sifooyinkeeda ka hortaga bararka. muuska waxa uu la dagaalamaa shubanka iyo dib u soo noqoshada aashitada, iyo dacartu waxa ay yaraysaa caabuqa mindhicirka. babaya waxay xoojisaa enzymes dheefshiidka, fududaynta dheefshiidka. waxa aad cunto ayaa saamayn weyn ku leh caafimaadkaada. arrimaha dheefshiidka ayaa inta badan carqaladeeya nolol maalmeedka, laga bilaabo barar aan raaxo lahayn ilaa calool adag. jadwalka ballanta dhakhtarka ee cudurrada yaryar badanaa suurtagal maaha. xaaladahan oo kale, qofku wuxuu u jeestaa dawooyinka guriga ee waxtarka leh. Dr. Saurabh Sethi, oo ah dhakhtar ku takhasusay gastroenterologist, ayaa la wadaagay qaar ka mid ah dawooyinka guriga ee qofku isku dayi karo inuu baabi'iyo dhibaatooyinka dheefshiidka ee caadiga ah ka buuxaan probiotics. caano fadhigu waxa uu soo bandhigaa bakteeriyada faa'iidada leh ee dheelitiran microbiomika mindhicirka. yogurtu waxay caawisaa dheefshiidka waxayna kor u qaadaa difaaca. yogurtu waxay u fiican tahay guud ahaan caafimaadka mindhicirka. dooro caano fadhi oo cad aan la macaanayn oo leh dhaqamo nool faa'iidooyinka ugu badan. isticmaalka joogtada ah ee caano fadhigu waxa uu wanaajin karaa flora mindhicirka, yaraynta bararka, iyo hagaajinta guud ahaan shaqada dheefshiidka. midhahan yar ee nafaqada leh ayaa qani ku ah fiberka, waxaana ku jira actinidin enzymekaas oo kor u qaada joogtaynta mindhicirka. kiwi waxay heli kartaa waxyaabo qulqulaya. cunista hal ama 2 kiwi maalintii waxay kaa caawin kartaa yaraynta calool istaaga. kiwi waxay kordhin kartaa soo noqnoqoshada saxarada, waxayna wanaajisaa joogtaynta iyada oo aan waxyeelooyinka soo raaca ee dawooyinka caloosha ku jira. waxaa ku jira fitamiin aga sare, waxa ay sidoo kale taageertaa guud ahaan caafimaadka dheefshiidka. sinjibiisha, dad badan ayaa la halgamaya dibiiro, laakiin daaweynta fudud ayaa kaa caawin karta yaraynta arrinta hiidmaha ee aan raaxada lahayn. sinjibiisha, dhiigbaxa wuxuu noqon karaa mid aan raaxo lahayn oo carqaladayn kara. Dr. Sethi wuxuu leeyahay sinjibiilku waa hal dabiici ah. waxaa lagu yaqaanaa sifooyinkeeda ka hortaga bararka iyo arminatiife. sinjibiilku wuxuu caawiyaa nasinta habka dheefshiidka, waxayna yareeyaan soo ururinta gaaska. qofku wuxuu ku cuni karaa sinjibiisha shaaha, lagu daadi karo cuntada, ama loo qaadan karo kaab ahaan. sinjibiishu waxay dejin kartaa caloosha, waxayna wanaajisaa dheefshiidka. ku darida xaddi yar oo sinjibiil ah cunto maalmeedkaaga waxay u fiican tahay caafimaadka mindhicirkaada. muuska si uu ula dagaalamo shubanka iyo dib u soo noqoshada arid. caafimaadka mindhicirka. muuska waxa uu aad ugu fiican yahay caafimaadka dheefshiidka. Dr. Sethi waxa uu ku talinayaa in muuska uu joojiyo shubanka. muuska waxaa ku jira maadada loo yaqaano beectin oo ah fiber milmi leh oo soo nuugta biyaha xad-daafka ah ee hiidmaha kana kirisa saxarada. waxay yihiin kuwa jilicsan oo sahlan in la dheefshiido, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon marka habka dheefshiidka uu xanaaqo. muuska waxa kale oo uu ka caawin karaa dib u soo noqoshada aashitada, maadaama ay u dhaqmaan sida aashitada dabiiriga ah oo dahaarida hubka caloosha iyo nadiifinta aashitada. turmeric, si loola dagaalamo caabuqa mindhicirka. Dr. Sethi wuxuu ku talinayaa turmeric, hawaashka loo dabaaldego xarunteeda firfirtoon curcumin. turmeric waa antibararka awood leh oo dejin kara mindhicirka xanaaqsan. curcumin ayaa la muujiyey si loo yareeyo calaamadaha xaaladaha mindhicirka bararka iyo taageerada bogsashada mindhicirka. tixgeli in aad ku darto cunnooyinka cagaarka ah ama uu qaado kaabista basbaaska madow si aad u wanaajiso nuugista. marka laga reebo mindhicirka, turmeric sidoo kale wuxuu faa'iido u leeyahay caafimaadka guud ee difaaca. daawooyinka guriga ee fudud oo waxtarka leh ee calool istaaga. babaya, si kor loogu qaado enzymes dheefshiidka. babaya waa sida gargaarka dheefshiidka dabiiriga ah. dadka u baahan taageerada enzyme dheefshiidka, babaygu waa xulashada ugu saraysa ee Dr. Sethi. qani ku ah babayn oo ah enzym caawiya dheefshiidka borotiinka. babaygu wuxuu caawiyaa burburinta cuntada, wuxuuna yareeyaa cadaadiska dheefshiidka. isticmaalka joogtada ah ee babaygu waxay fududayn kartaa calaamadaha dheefshiidka, waxayna wanaajisaa nuugista nafaqada.